haddii ay taariikhdu ku xusi weydo inta aad nooshahay ha u ogolaanin marnaba inay ku xusi weydo marka aad dunida ka tagtid. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محل. السلام عليكم waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan ku soo dhawow hal shay oo aan si dhab ah u ogahay magacay waa Yuusuf Sakiin kadib markii aan fiiriyo aan u kuurgalay dadka dunidan caanka ku noqda waxaan arkay inay yihiin laba qof dadka oo dhan ay u wada duceeyaan oo marka ay la kulmaan ay ku yiraahdaan khayr Allah ku siiyo ku barakeeyo wax badan ayaan ka baranay wax badan ayaan nolosheena ka bedeshay iyo qof kale oo dadka oo dhan ay wada habaaraan oo aan muuqaalkiisa la arki karin oo marka magaciisa ama magaca la sheegaba dadka oo dhan ay wada yiraahdaan oo hebel masahiblaayo iga daa waxaad ogaanaysaa marka hore doorashada in adiga aad leedahay wax walba aad samaysatidna inay yihiin wax adiga meel ku galaya oo aad dunidan dhiganaysid hadaba ma waxaad dooranaysaa inaad beeratid liin macaan badan mise waxaad dooranaysaa inaad abuuratid dacar qaraar badan mar walba doorashada adiga ayaa iska leh arintu waxay tahay oo kaliya maxaad doonaysaa in lagugu soo xasuusto maxaad doonaysaa in dadka ka dambeeya jiilka ka dambeeya aad uga tagtid dunidan hadaba maxaad rabtaa inay taariikhdu kugu xusto marka aad dunidan ka dhaqaaqdid qaabkeed doonaysaa inaad raadkaaga u dhigatid halkan hadal kasta oo aynu ku hadalno muuqaal kasta oo aynu duubno waa dhaxal aynu halkan dhiganayno waa dhaxal aynu dunida uga tagayno oona uga tagayno dadka naga dambeeya hadaba maxaad doonaysaa dhaxalkaaga inuu noqdo sidaas ma ah hadda waxaan ku hayaa fikrado kugu caawinaya in wixii hadda ka dambeeya aad wanaajisid raadkaaga fikradda koowaad waxay tahay ka fikir qaabka aad u soo muuqanaysid aad ay muhiim u tahay inaad ka fikirtid qaabka aad dadka hortooda u soo istaagaysid arintu ma ahan oo kaliya waxaan doonayaa inaan soo muuqdo inaan videos ka duubo ma waan ku sheegay hadal kasta oo aad ku hadashid muuqaal kasta oo aad duubtid waa dhaxal ka haraya hadaba qaabkeed doonaysaa inaad u soo muuqatid sida qofkan uga fikiro jirkiisa iyo quruxdiisa sidoo kale waa inaad uga fikirtaa inta aadan dadka hortooda imaanin qaabka aad u soo muuqanaysid qaabka aad doonaysid inaad dadka hortooda u soo istaagtid ka fikir arintan maxaad doonaysaa inaad dadka u sheegtid maxaa fikrad ayaad u haysaa mise waa iska soo muuqo mise waa iska raadi hal lagu maqlo hal lagu wadwado warkaaga hal la sheego mise waxaad doonaysaa wax qiimo iyo tayo leh inaad dadka u soo gudbisid waayo marka horeba qofkan wuxuu ku fikirayaa uu og yahay hadal kasta oo ku hadlo wax kasta oo hadda aan duubo inay yihiin wax dhaxal ah wax iga haraya oo weligoodana sii jiraya oo dadka iga dambeeyana ay weligooda ay daawan doonaan ama ay dhageysan doonaan Soomaa waa sidaas hadaba 15 daqiiqo 20 daqiiqo aad hadlaysid ha u maleynin in arintu meesha ku dhamaatay balse waa mid sii jiraysa oo sii soconaysa hadaba ka fikir inta aadan soo muuqanin qaabkeen doonayaa inaan u soo muuqdo fikradda labaad waxay tahay beri maanta ka hor arintu ma ahan mid ku eg daqiiqadan aad hadlaysid oo kaliya balse waa mid sii jiraysa weligeeda hadaba waa inaad ka fikirtaa berito mar walba waa inaad fiirisaa waxyaabahan aan hadda ku hadlayo waxyaabahan hadda aan sheegayo ma waxay yihiin wax hadhow dambe ii keenaya sumcad wanaagsan ii soo jiidaya hadal wanaagsan mise waxay noqon doonaan wax dadka oo dhan ay ugu habaaraan hadaba beri maanta ka hor fikradda saddexaad waxay tahay raadkaaga wanaaji qofkana waa inuu ka fikiraa mar walba raadka uu ka tagayo mar walba waa inaad ka fikirtaa sumcadaada waa inaad ka fikirtaa waxa aad halkan uga tagaysid waa inaad ka fikirtaa aakhiro waa inaad ka fikirtaa Soomahan familkaaga dadkaaga ila ma tihid qof kaligiisa nool dunidan waxa tahay qof ku xiran dad kale waxa tahay qof leh family kale reer leh ayaa tahay Soomaan waa inaad ka fikirtaa sidoo kale dadkaas kale ee kugu xiran waxaadna ogaanaysaa wax walba adiga kugu dhaca
inay dadkaasi ayaguna sidoo kale ay saameynayaan. haddaba ma tihid qof kaligiisa ah, waa inaad arrinta mar walba aad ka fikirta oo aad ka fiirisaa dhinacyo badan. arrintan adiga aad samaynaysid hadda ma waxay noqon doontaa mid hodhow dambe qaab daro iyo sumcad daro u keenaysa dadka kale, familigaaga dadkaaga kale u keenaya marka laga soo tago adiga? ma tahay midaas? waa inaad ka fikirtaa arrinta, waa inaad ka fiirisaa dhinacyo badan. ogowna ma ahan oo keliya inaad caan noqotid, balse arrintu waxay tahay qaabkeed doonaysaa inaad caan ku noqotid. كن راسخا مثل الجبال